الرحيم كلنتي وعن أو ونكسن داوداش إذا قيمها أي قدرين تنجمدنو ومركل يا برنامج كيني حيسا يا xulashada toddobaad kiba halkan ka daawataan telefishinka madaxa banaani home cable TV طبعا برنامجka xiisa ya xulashada oo nimcay xamsa si wada jira digu soo daayaan heeso kala duwan toddobaadkan barnaamijku heesi kala duwan oo ku duway toddobaadkan waxaan soo dindoonaa heesaha uu sameeyay abwaanka caanka Xasan Daahir Ismaaciil Weedhsame oo dabcan aad taqaanaan intaynan galin dabcan heesaha kala duwan iyo wareysidan la yeelan doono oo dhinacyo badan taabanayna nimco su'aalo darandoori weydiin doono bar marka hore hees kamid ah heesaha caanka ah ee Soomaaliyeed oo qaado fanaanka codka macaan leh Cawaale Aadan oo dabcan abwaan Weedhsame sameeyay waa nabaadiino in yar bada xasuusiyo noqon doona dabcan daawadayaal heesta falanqaynteeda nabaadiino dabcan iyo abwaanku sidoo ku sameeyay barimika Nimco Umar Maxamed Sabriye dabcan haynoo dul marto taariikhda abwaanka aad baadeen xamso u mahadsan tahay sidoo kale abwaan Weedhsame waqtigiisa qaaliga ah ee uu nasiyay si fiican ayaan uga mahadnaqaynaa kulay su'aalo darandooriya ayaan aniga xamse isku weedaaran doona waxaan isniri kulay abwaaniinta iyo fanaaniintu way ka aftahansan yihiin dadka kale marka waxaan isri balaadiyo xamse aad isku qabataan maadaama abwaan yahay si aydaan intaasi aan ka gudbo aan gudagal hadaba waa kuma Weedhsame waxa uu ku dhashay tuulada Kalabeed oo ka tirsan gobolka Gabiley waxa uuna waxbarashadiisa ku qaatay gobolkaasi Gabiley ilaa heer dugsi sare isagoo ka baxay dugsiga sare ee Timcadde waxbarashadiisa waxa uu ku qaatay heer jaamacadeed jaamacadda Camuud oo ka tirsan gobolka Awdal ee magaalada Boorame waa qof aan isagu xaas iyo caruur mid toona lahayn oo waayihii dhalinyarnimo ku jira shaqadiisuna waa macalinimo intaasi marka aan kaga gudbo xamse ayaan ku celinayaa iyo waliba barnaamijkeena xiisaha iyo su'aalaha aan weydiinayno abwaanka daadayar hay xamse waatay abwaan dabcan kala waxa teeboon qaaliyo heeso badan sameeyay gabayo badan sameeyay nimcayna wuxuu sameeyay maasooyin badan buu sameeyay jacayl iyo ka hadlay taariikhta uu soo noqon doona abwaan goorma ayad bilowday urinta heesooyinka ama dabcan maasada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعده markii iigu horeysay aan sameeyay maanso waxay ahayd 1998 dabayaaqadiisii waqtiyadaasi oo ay ahayd waqtiyadii muxuu ahaayay aan dugsiga ku jiray muxuu ahaayay fasalka 8aad waqtigaasna wixii iigu horeeyay ee la oran karo waa suugaan agaheeda ku taagan waqtigaasna sameeyay intii ka dambeysana saas buu dib u socotay waa tahay waxaad sheegtay inaad 1998kii aad samaysay marka ma waxaad hiddo u lahaydeen ba markaasi ayuun bay kugu dhalatay mise siyaabo kale oo waqtigaasi aad u samaysay ba jiray waxa jiray muxuu ahaayay horta hiddo umalihi oo cid tilmaaman oo aan ku oran karo idaasaan ka hideystay maas suugaanta ma jirto qoys ahaan sidoo kale muxuu ahaayay waxa la yiraahdaa suugaanta de hawli keenta ku leeyahay jirto dadka qaar ba mashkilad waqtiga isaga haysaa ka keentaan iyadana sidoo kale muxuu ahaayay ma jirin wax hawlo iga keentay laakiin sahiiba ilaahay day abuuray oo igu jirtay oo waqtiga soo baxday un bay ahayd منوشة كرتاب وان مريه كجوهريات سميسها نقطة حس أما نقطة ماسة مريه يجوهر هي محايا السماية وقت يجوهر رئيسي معلومة كم إذا واحد عين من الصاحب أنه هاي وأبوه أنه الله يرحم عبد الرحمن محمد مع الحسن بس أيا السوق السوقان سمين يعني وقت كان يقول السوقان تو حسين يونه لكن سوى سمينته وح يقول بشيء وقت كان مهين دبت مركم أركين مع صدي بس السماية أيام كوري أنا ما سمين كلا سور بالواية يسكت مال يربان كل كافر فردنا دبت مركز ثاني يقولون بهالشيء
qalinkiian qaatoon qorqoray erayadii ugu horreeyay waxay ahaayeen waayaha adduunka iyo waqtiga iskuraaya wadnahayga lulayo igu waabay meel maran weligeed naftayduna waxay doonto un baan wacyigeeda yeelaa maanse yaroo gaaban oo noocaasiya ayay ahayd taasaa iigu horreysay markaa waxaan sameeyo waa tahay daawadayaal dabcan aynu soo noqonna daba heestii aynu ku furnay barnaamijka ee minutes ka koobnaa ee weli aan dhammaystirin heestaas waa heesta nabaadiino dabcan midho badan leh abwan heesta sidaad ku samaysay qiisadaad ku samaysay qiisa dhaba nagu sheekay nabaadiino kolley waxa weeyaan waa hees ka mid ah heesahayga oo waxa qaada fanaanka cawaale la yidhaah nabaadiino waxay soo baxday oo aan sameeyey heesta 13 September 2008 baan sameeyey heestaasu waxa jirta muxuu ahaay heestu waa hees sideedu dhabay ahayd oo heestu waa hees aniga ay qusaysaa oo aan cid kale ay qusaysaa aanay jirin waxaanay ku saabsan tahay uun kalgacal iga dhicisoobay oo aan islahaa muxuu ahaay meel fog buu gaaraya oo dabeetana wax yimiba sida heesta ka cad dhinacii kale laga waayay muxuu ahaay darandoorkiisa gabadha looga baahnaa dabeetana qasab ka dhigtay inuu kalgacalkii uu noqdo wax iska soo afjarma heestu saasay ahayd qisadeedu oo qisada aniga igu saabsan ayay ahayd heesta marka dadku dhageysan horta waxay ka mid tahay heesaha imka loogu dhageysi badan yahay markaad eegto dhalinyarada iyo dhinac kasta qof kastana in baa ka soo jiidata aniga waxa aad ii soo jiidatay inta erayada aad leedahay haddii aad naruuriyo shalay irinaq baad tahay maanta nal baad tahay iyo nuurka aragtida oo aad weliba tilmaamayso hankaad naaga dheer tahay maxaad markaa intaasi bal noo macnee waxay intaasu sheegaysaa horta kolley qofku waxa jira dadku waa darsin bay u xiran yihiin siyaasiga iyo muxuu ahaay qofka suugaanyahankiina way kala duwan yihiin siyaasiga waxa lagu yaqaanaa maanta markuu xisbi hebel ka baxo ee uu xisbi hebel galayo xisbigii hore u sii caaya dabeetana xisbiga dambe uu ka socdo ayaa u sii lug baxaa adiguna inaad si siyaasiga u dhaqanto muxuu ahaay aad qofkii xumaan ka sii sheegtaana weliba ay gabadhna tahay oo gabadhiina muxuu ahaay gabadha guudku daban yahay oo calafkeedii sugaysa ay tahay inaad xumaan ka sii sheegtaa horta sideedaba waa mid gudnimo ah oo taasu iyadoo halkeedaasay taallaa takada qofka shalay haddii aad odhan jirta waa qof wanaagsan shalay haddii aad wada joogteen qofkan wanaagsanaa haddaad maanta tiraahdo qofkii wuu xumaa shalay adiguna ilan qof xun hadduu yahaadna shalay waad xumayd bay noqonaysaa dabeetna kolkaa taasuna waa ilaa cay adigu soo gaadhisay ma la socotaa qofkana waa inaanad qarin karin muxuu ahaay wanaagga uu leeyahay anigu kolkaa hees waxay muujinaysaa haddii aan naruuriyo shalay dhinac baa tahay oo shalay daadila wanaagsanay maantana nal baa tahay nuurka aragtida yaani maantana sidii un baad u wanaagsan tahay wanaagaagii waxa inaga naga xumaaday waxba yeeli maayo dad qof wanaagsan tahay qof wanaagsan baad ahaanaysaa no matter waxa dadka kale idinka idin soo kala gaadhay nasab qaaliya tahay qof naf loo huraatay hankaad naaga dheer tahay wallaahi waxaan uga jeeday kulli qofkii muxuu ahaayay qof han weyn ayaan arkayo meel sare ku socota kolka ilaahay ku garab galo kolka saas in baan uga jeeday waa tahay horta waa ilaahay mahadii mar hadii maanta heestaa wax kastoo ku saabsan oo qalbigayga ku jiray aad hor fadhido oo aan ku weydiin karo dadka qaarna kulli ay soranayaan aniga qodheeda weydii baan islahaa waxa jirta marka heesta aan dhageysanayo in kale oo tiraahda anigoo nacayb iyo naxli aanu igu jirin nasawaan ku daayay nin xun eeba kuma bado nafsigayga kuma helo markaasi yacni nafta yacni shaydaan kama adkaan markaasi oo nafta marka ay qof kale isqabtaan way ka baawar weynaataa qofku naftiba ka baawar weynaanayso qofkii baad hiifaysaa nacaysaa ambaba habaaraysaa oo aad inkaaraysaa dadka qaar marka jacaylku ku dhaco ee qofka kale kaga baxo waxay in badan yiraahdaan nafsi baa heli doona iyagoo rabo waliba nafsigaas inuu helo soo rido marka ma la oran karaa anuma intii aynaan isaqoon waxaan idhi abwaanka gobonimadiisa heestaas inta ka tilmaamaysa maadaama habaar laakiin naftaadu ma garnaqsateen oo naftaadi adiga ka xoog weynaaday oo heesta tiriyo yiri nafsigeedu yaanu ka helin de horta